badhasabka gobolka Hawd iyo maayirka degmada Balligubadle oo ay weheliyaan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Balligubadle ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay dayr iyo dubahabayn lagu samayn doono xaruntii hore ee dawladda hoose ee magaalada Balligubadle iyo sidoo kale kastamka wasaaradda maaliyadda ee gobolka Hawd oo isna lagu kordhiyay afaaf labaad oo lagu talagalay inay baabuurtu ka baxaan waxaana hawshaasi hirgelinaysa dawladda hoose ee magaalada Balligubadle waxa ugu horeyn xafladaasi dhagaxdhiga ahayd ka hadlay maayirka degmada Balligubadle Cabdi Iimaan Jaamac waxaanu faahfaahin ka bixiyay goobahana ay maanta dhagax dhigeen. Halkaan taaganahay haween dawladda hoose ee degmada Balligubadle waa qaybta aan ku shaqeynay qaybtii labaad weeye oo ka kooban 6 qol iyo hoolkii shirarka taas oo ahayd bilaadeyr maanta waxaan dhagax dhigaynaa hadii la xiraado deyrkii dawladda hoose oo noo qorshaysan bishan aan kulamaystirna hadii la dawladda iyo waxaan taaganahay kastamka gobolka Hawd marka waxaan sameeynaa tan ahay maayirka degmada Balligubadle inuu aanu sameeyno kisibka uu ka soo galay kii uu ka baxayeen aanu sameeyno laakiin waxaan ka codsanaa wasiirka maaliyadda inaad kastamka noo balaarso maadaama uu ku fadhiyo yar yahay kastamka marka imka sababta aan u furay albaabkan xagan aan u furay aan u gelinay waa inuu markuu xaga ka soo galo inuu qoyna ka baxaa gaarigu waxa iyaguna halkaasi hadallo mahadnaqa ka jeediyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hawd iyo xubno isugu jiray xildhibaano iyo isku duwayaasha wasaaradaha ka howlgala gobolkaasi Hawd dawladda hoose kana maanta hadii ay deyrka oo sameynaysan dhagax dhigaysa tacabkuna waa halkaas oo ka sii wadaano wixii aad qabateen Allah idin la xasiliyo dawladda hoose maanta wado ugu mahadnaqaynaa dawladda hoose wado iyo maamulkeeda waxa noo qorshaysan hadii alla yiraaho sanad ku jiro inaan wax badan qabanno tanina waa qorshayaashii aan qabanaynay bay ku ka tahay dawladda waa maasanta oo maanta dhagax dhigtay gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay badhasabka gobolka Hawd Yaasiin Maxamed Shide waxaan u mahadnaqay golaha deegaanka degmada Balligubadle waxaan u mahadnaqayaa maayirka iyo golihiisa deegaanka waayo dadku markuu isku kalsoon yahay ee uu wada shaqaynayo waxa uu hirgalaa wax badan oo ay qaban karaan baa jira marka aad baan ugu mahadnaqayaa waxay hore u fuliyeen intii aan joogay dhowr mashruuc bay fuliyeen imikana wuxuu maayirku ballan qaaday iyo golihiisa deegaanka inay fulinayaan dhowr mashruuc ay fulinayaan hadii Ilaahay ka dhigo bishan iyo bisha soo socotaba oo uu ka koow yahay in ay xaruntii hore ee dawladda hoose ku shaqayn jirtay inay saaka u sameynayaan building cusub ama dib u habayn cusub oo uu ku jiro dayr waxay kaloo ballan qaadeen in ay dhisayaan dhowr goobood oo kale iyaguna dhagax dhigi doonaan hadii Ilaahay ka dhigo aad bay guul noogu tahay inaanu leenahay maayir iyo golo deegaan oo isku duuban oo jecel degmadooda inay wax ka qabtaan aad bay guul u tahay waa nasiib dadka aanu dheernahay Maxamed Jiiro Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Balligubadle